Asalaamu calaykum soo dhawaada asxaabta maanta waxaan sharaxaadiisa dhamaystiri doonaa filimkii The Tomorrow intaana muuqaalkeena u gudgelin waxaan kaga mahad celinayaa muuqaalkii ka horreeyay si aad muuqaalka laagta ugu roonateen asxaabi midkaana laagta ugu roonaada waa kanaan filimkii ee daawasho wacan halkan ayay ka bilaabanaysaa qaybta labaad ee filimka xeebtan ayayna siina fara badan ku qaadanayaan Danny Frost iyo gabadha taliyaha maadaama ay kusoo guuleysteen in ay soo qabtaan bahalkii magaalada dhibayay halkan waxay ku wada dhigayaan qorshe fara badan ay ku wada degayaan balse gabadha ayay aqoon fara badan isku leeyihiin halkan waxay ku galayaan xasuuso fara badan oo ayaga u dhaxeeya kadib diyaaradii ayay raacayaan waliba diyaaradii ayaa lagu wadaa bahalkii waxay aadayaan dhankaasiyo meeshii ay bahalka ku xanaanay lahaayeen waxay tagayaan magaaladii ay kasoo dooneen bahalkii markii magaalada tagaan bahalkiina waxaa ku xiran silsilad xoog leh ayaa meesha la taallaa bahalka waxay ku sameynayaan inay ka qaadaan bahalka suno fara badan ayay ku durayaan si natiijo guduud bahalka looga helo iyo halka uu kasoo iskumay waxay ku durayaan cirbad kadibna waxay ka qaadayaan sun iyo waxyaalo fara badan si bahalka loo helo meesha laga mari lahaa iyo sidii loo dili lahaa bahalka dhowtadeen waxaa la rabaa in lagu qaado weerar waxay dejinayaan khidadii bahalka lagu soo qaban lahaa waxay ogaanayaan in sun ay u helaan kadibna suntii ayay rabaan in bahalkaas u adeegsadaan si ay bahalka ugu lahaayeen sunta waxay soo saarayaan sun fara badan balse bahalkii ayagoo waxba ogeyn suntii firfiirinaya ayay bahalkii waxay arkayaan oo qaylinaya oo salgihii goosan rabaa kadib waxay ogaanayaan in bahaladii kale ay bahalka qayladiisa maqleen kadibna bahaladii kale ay soo yaacayaan balse bahaladii waxaa lagu weerarayaa diyaarado fara badan ayaguna waa isdiyaarinayaan hubkoodii ayay soo qaadanayaan waxay imaanayaan meeshii bahaladu ay weerarka ka hayeen balse bahaladii waxaa lagu doqeynayaa qalabyo ayaa lagu duqeynayaa inkastoo bahalka weynaa oo silsiladii goosan rabo bahaladii dhammaa markay magaalada weerar kusoo qaadaan diyaarado iyo waxaa lagu duqeynaya erkabtaro kadib bahalkii bahalo kale ayaa u imaanaya silsiladii ay ka jarayaan balse bahalka weynaa waa uu soo farabaxsanayaa magaalada dhexbatankeeda ayuu soo aadayaa meeshaan labadoodii ayaa jooga markaan si dhuudhuumasho ah ayay kusoo galayaan meesha balse waxay dhuudhuuntaan markaan si foolka foola waxay isku helayaan bahalkii balse bahalkii way xabadanayaan asaguna bahalku marka istaagayo uu ku soo ordayaa gabadha ayaa markaan wax soo gaaraya dhaawac fara badan balse Danny Frost ayaa gabadha garab siinaya waa uu ku soo ordayaa waxaa amar lagu siinayaa in meesha ay dab ka kacay kadibna ciidanka dhammaantood ay kasoo tagaan balse Danny Frost gabadha kama uu tagi karo waxay leedahay iska bax aniga ayaa meeshan ku geeriyoonaya halkan ahay adiguna ha raacin maadaama anigu aan dhima rabo kadib gabadhii waxay u dhiibaysaa daawo yar oo bahalada uu ku lay doonaa dhowtadii ayay farta ka saaraysaa maadaama anigu waa dhimanaya balse Danny Frost arrinkaas wuu diidayaa wuxuu leeyahay aniga ayaa ku badbaadinaya ee joog kadib bahalkii weynaa ayaa darbiga kasoo boodaya balse gabadhii waa baxsan rabtaa Danny Frostna wuxuu ismaleeyaa awoodiisa si uu gabadha u celiyo gabadhii Danny Frost u celiyo gabadhii ayada markaana way ka farabaxsanaysaa markaas bahaladii ayay gabadhii dhacaysaa kadib Danny Frost halkaas iyagu meesha ugu badbaadaya waxaa la geenayaa ciidamadii kale oo meesha ku darsanay ayaa la geenayaa balse Danny Frost markaan dhaawac fara badan ayaa soo gaaraya iyaga iyo ciidankii ayaa dhaawac fara badan soo gaaraya waxaa u imaanaysaa gabadhii ciidanka taliyihii hore ee ciidanka ayaa u imaanaysaa waxay leedahay waxay gaareen ciidanka dhan way wareysanayaan balse Danny Frost meel Allah meel joogo uu qoweynayaa garabkiisa wuxuu ka arkayaa saaxiibkiis isagana oo meesha yaala saaxiibkiisna dhaawac fara badan ayaa soo gaaraya kadib asxaabtu way soo baxayaan shacab badan ayaa banaan ku sugaya balse Danny Frost isaguna wuu soo baxayaa waxa uu banaan ku sugaysaa xaaskiisii ayaa banaan ku sugaysaa kadib xaaskiisa markay ay wada salaamaan way baxayaan waxay aadayaan dhankaasi gurigoodii markay gurigooda tagaan wuxuu la kulmayaa gabadhiisii ayuu guriga kula kulmayaa gabadhiisa ayaa soo dhaweynaysaa waliba wax usbanaysaa surprise waliba aad u soo dhaweynaysaa balse gabadhiisii aad ugu farxayaa arrinta ay samaysay kadib gabadhiisa markuu u mahadnaqo wuxuu samaynayaa gabadhiisii inay seexdaan dhammaantood balse Danny Frost xaaskiisii ilaada ayadu ma hurdin waxay sameynaysaa inay banaanka usoo baxdo in xaaskiisii ay ka wardoonaysaa markaas laakiinse ilaada Danny ma hurdin inta u tagta waxay leedahay maxaa qaldan maxaa jira balse Danny wax walba uu soo arkay oo meesha uu kala soo kulmay dadaalkii faraha badan oo dalkiisa u bixinayay wax walba ay uga sheekeynaysaa balse way rumaysaa waxay leedahay bahaladii ma soo disheen wuxuu uga sheekeynayaa inuusan bahaladii soo dilin oo halkaasna ay uga soo dhimatay saaxiibtiisa oo gabadhii la shaqeynaysa taliyaha aad balse waxay leedahay mar kale oo taga balse Danny Frost markan uu soo baxayaa wuxuu u laabanayaa saaxiibadiis si ay mar kale ay weerar u qaadaan wax walba shaashada ay kala socdaan saaxiibkiisna wuxuu leeyahay waan baxaynaa waliba markaas waxay aadayaan dhankaas asxaabtii kale markay u tagaan asxaabtii kale waxay leeyihiin waan baxaynaa balse Danny wuxuu u laabanayaa ardaydiisii hore si uu uga helo caqli iyo mataqaanaa xirfad kale kadib asxaabtii kale ay u soo laabanaya wuxuu leeyahay waxaan ka rabaa si lagu heli bahalkaas meesha jooga
wiilku wuxuu dalbanayaa in loo keeno laptop markii loo keeno wuxuu tusayaa wax walba oo ku saabsan buuraha barafka ee mari doonaan iyo weliba halka bahalka laga helayo wax walba ayuu tusayaa balse asxaabtii way ku farxayaan arrinta uu soo bandhigay wax walbana way ka gudoomayaan kadib way soo baxayaan waxay u tagayaan madaxweynaha balse waxay u sheegayaan inay baxayaan oo mar kale dalkooda ay difaacayaan naftoodana ay u horeeyaan balse madaxweynihii waa u baxayaa waxay leeyihiin waxaan ka rabnaa helicopter balse taliyihii waa uu dirayaa Danny Frost markaan wuxuu aadayaa aabiis ay dib ugu laabanayaa si uu u helo diyaarad asxaabta kale waa soo fasaxayaan markuu aabiis u tago wuxuu leeyahay waxaan ka rabnaa diyaarad sidoo kale aana garab siisid balse aabiis wuxuu leeyahay arrinta waa in ka ogolay soo diyaar gareeya asxaabta kale way soo diyaar gareeyaan dhammaantood way soo fuulayaan helicopterkii markaana gabar kale ayaa ku soo biiraysa asxaabtii dhammaantood way wada sheekaysanayaan waliba helicopterkii ayay raacayaan markaan diyaaradiina sidaas ay ku kacaysaa oo hawada ay gelaysaa waxay aadayaan dhankaas iyo meeshii bahlada ay ka heli laayeen wax walbana halkan ayay ka wada socdaan iyagana dhammaantood way hubeysan yihiin waxay iimaanayaan bashinkii lagu talagalay waxay ku soo degayaan dhulka balse dhulku waa qaboobay yacni meesha dhan baraf ayaa yaala dhulka iyo yacni mataqaanaa biyo iyo baraf ayaa meesha dhan ka buuxa asxaabta dhan waxay isku diyaar garanayaan inay mootooyinkooda qaataan mid walba mootadiisa ayay ku dhacayaa kadib barafkii ayaa lagu dhex ordayaa waxaa la rabaa in la tago meeshii buurihii bahalada lagu tegi lahaa mar allaala markii ay isku diyaar gareeyaan inay meesha tagaan asxaabta dhammaantood mid walba wuxuu wataa mooto ugu talagalay kadib waxay imaanayaan booshinka lagu talagalay way istaagayaan markaan si ay u hubiyaan barafka ay marayaan iyo xaddiga ay ku dhex jiraan markaan waxaa lagu baaqayaa inay istaagaan yacni barafkan haddii uu ku dhex socdaan barafkan waa uu dili karaa meeshana waa ku qorqorqi kartaa iyagoo socda oo tartiib iska socda balse hortooda waxay ka arkayaan arrin la yaab leh arrintuna wax kale ma ahan hortooda ayaa wax ka kacaya qaraxna wax kale ma ahan oo waxa uu naqaano volcano ama yacni meelaha buuraha kale ay gubtaan hortooda waxay noqonaysaa god balse asxaabta markaas waxay ka helayaan jaanis ay ku geli karaan meeshaas barafkii ay soo dhex marayaan barafkii gudaha ayay usoo geliyaan inkastoo barafka uu yahay meel hogab ilaa haddana meeshii lagu talagalay ay bahlada u joogeen ma isa gaarin muhiimadoodan wax kale maahan waa inay qabtaan bahalka weyn meesha uu kasoo iskumo yacni wax walba waxay leeyihiin meel ay kasoo iskumaan halkaas ay rabaan inay ka dabargooyaan asxaab kale ayay banaanka u diraynayaan si ay mataqaana ayaguna halkaas ay ugu waardiyaan kuwan kalena gudaha ay u galaan asxaab kale uu ka mid yahay Danny Frost uu hogaaminayo ayaa gudaha galaysa asxaabta kalena banaanka ay ku waardinayaan mar alla markay gudaha ay soo galaan aabiisna ma uu ka haraya oo soo raacaya balse Danny wuxuu leeyahay abo iska haraysaa balse odagu waa uu diiday wuxuu leeyahay meeshan aniga ayaan ku sugayaa kadib odagii wuxuu go'aansanayaa inuu banaanka ku sugo halka gabadha kale iyo asxaabta kale ay Danny raacayaan godka la galiyaan godkii ay isku soo gurayaan markaan iyagoo qalabkoodii wataa balse godka gudihiisa waa mugdi toosh ay soo qaadanayaan godka gudihiisa ay imaanayaan ilaa hadda ma aysan helin booshinka lagu talagalay markaan waxay arkeen meeshii ay bahlada ku jireen yararka ahaa ayay arkeen balse waxay isku dayaan inay meesha jabiyaan yacni ay daawo qaataan daawadii ayay habaysanayaan marka wax isticmaalayaan kiimikadii markii hore ay gabadha siisay kiimikadii ayay habeynayaan kadib waxay ku durayaan bahladii balse bahladii markii kiimikada lagu daro bahlada dhammaantood waa soo kacayaan bahladii waa ay xanaaqayaan asxaabta kalena waa ay baqayaan markii bahlada nuuxsadaan waxay isleeyihiin bahlada sidii isku boodin mar kale ku daya balse bahladii way soo boodayaan asxaabta kalena banaanka joogtay qaar ayaa ku yaacaya balse asxaabta banaanka joogtay gaal ay bilaabayaan halka asxaabta kalena meesha lagu haysto bahladii banaanka joogay ayaa banaanka u soo baxaya balse asxaabtii kale ayaa bahlada leynaya markii ay banaanka u baxaan oo bahlada ka cararaan saaxiibkood ayaa meesha ku haraya balse bombo intuu qaato wuxuu leeyahay idinka meesha ka baxa bahladan aniga ayaa la haraya kadib godkii dhammaa iyo wixii dhammaa ayuu isku qarxinaya asxaabtii kalena meesha way ka badbaadayaan kaligiis ayaa ku dhimanaya markaan asxaabtii kalena markan waxay ku talagalayaan inay meesha ay ku laabtaan si ay bahalka usoo qabtaan mar kale odagiina wax dhiba ayaa soo gaaraya balse odagii waa uu ka kabanayaa mar kale ayay mootooyinkoodii iyo qobkoodii ayay isku xiranayaan si ay bahlada usoo qabtaan way ku laabanayaan meeshii markii bashinka lagu talagalay ay yimaadaan ayagoo meesha taagtaagan ayay waxay arkayaan bahalkii oo kusoo ordaya kadib waxay u sameynaysaa qorshe ayay u degayaan meesha waxay u dhigayaan qolofta markii uu ku dhego oo qoloftii uu waxba ka waayo ayaa waxaa lagu dhufanaya odagii wuxuu ku dhufanaya xabad marka ay ku bilaabaan dhammaantood xabad ayay geesaha kala marayaan xabad markii geesaha kala maraan uu kusoo ordaya bahalku ilaa uu laba xabo oo ka mid ah uu dhulka dhigo kadib waxaa galaya Danny iyo aabihiis xabad ayay geesaha kala marayaan balse markaan way weynayaan meel uu ka jiro ayay quweynaan mar kale ay ku soo boodaya balse Danny asagoo cun raba ayaa odaga faas ayay ku dhufanaya odaga markaan bahalkii gacan ayay wax ka soo gaarayaan balse gacantii intuu qaato ayuu afka iska jaraya gacantii intii kale balse Danny Frost asagoo la yaaban ayaa odaga wuxuu leeyahay aniga ayaa isdilaya balse aabihiis wuxuu leeyahay jooji ha isdilin Danny Frost intuu soo ordo
ayuu dhalo ay ku jirta suntii ayuu afka u gelinaya bahalkii. Markuu bahalkii afka beelo kadibna darba ayuu ku dhufanaya halkaasna ayuu buurta uga tuuraya. Saas ayuu bahalku ku dhimanayaa. Balse sidaas ay wax ku guuleysanayaan Dani Faraso iyo aabihiis iyo asxaabtii kale. Kadib asxaabtii dhammaantood shaashadaha iyo meel walba ay warbaahinada ayaa laga sheegayaa inay guuleysteen. Kadib waxay u soo laabanayaan xaafadoodii iyo qoysaskoodii. Kadib ninkii Dani Faraso ah xaaskiisii iyo carruurtiisii ayuu saas ugu soo laabanayaa. Sidaasna ayuu ku guuleystay. Odaygii aabihiisna oo carruurta awoogoodna oo u imaanaya maadaama uu ku faraxsan yahay inay kusoo guuleysteen hawshoodii. Saas ayay halkaas wax ku eg filimkii The Tomorrow. Ana saxaab muuqaalkan like saara una share garay asxaabtina kale wixii fikrad ay ra'yiyaan noosina nagula soo wada qaybta commentiga. Asxaabi muuqaalkan ay muuqaalka inta ku kulmi doono waa sidaas iyo nabadgelyo.